anagoo guddiga qabaqaabada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID isla markaana aan ahay gudoomiyihii guddiga qabaqaabada Shirwaynihii Xisbiga UCID waxaan jeclahay maanta in halkan ummadda uga soo jeedino arrin ku ogeysiinayno hore waxaan u ilaaminay inaanu shirka qaban doono bisha November 29 iyo 30 asan maanta aanu dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga UCID aan ku wargelinaynaa inaanu dib u dhignay oo aanu ka dhignay 20 bisha December iyo 21 shirkaasi soo doono sababahan ugu dhignayna waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan oo si nooga yimid laamaha iyaga dibadda qubajooga oo doonayay anaguna runtaan aadanaynay inay ka soo qayb galaan shirweynaha iyaguna jeclaystay inay ka soo qayb galaan kuna markaa ay codsadeen in xilligan ay fasax yihiin Christmas Day in ay soo haleeli karaan oo ay iman karaan sababtaas ugu weyn codsigaas xagga maartay dibadda naga yimid asbaraha naga yimid iyaga ayaan runtii markaan tixgelin weyn siinay waayo ummad badan bay naga maqan dibadda oo xaq u leh inay siyaasadda dalka ay maantay wax weeyaan ay ka qayb galaan marka sababahaasaan dib ugu dhignay iyo anagoo ergooyinkaygii waqti siinayna ay si fiican ugu yimaadaan marka waxa weeyaan ummadda waxaan u sheegaynaa mar labaad inaanu shirweynihii aanu ka dhignay insha Allah noo qabsoomi doono 20 bisha December ilaa iyo 21 oo maartay socon doono sidaas maartay loola socdo ergooyinkana xiliyada ay ku soo gudbay maartay ku soo gudbona magacaantooda iyo isaskoodana wax way socdaan hawshaasna si fiican u socotaa laakiin waqtigu ma iyo jadwalku ma bedelay sidaasaan dadweynaha u sheegaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.